munaasabad ballaaran oo lagu xusayay 22 January oo ku beegan maalinta saxaafadda Soomaaliya laguna qabtay magaalada Nairobi waxa ka qayb galay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo agaasimaha qaybta Afrika ee xarunta difaaca wariyaasha adduunka ee CBJ iyo qaybaha kala duwan ee wariyaasha Soomaaliyeed ee Nairobi ka howlgala munaasabadan oo soo qaban qaabiyay ururka saxafiyiinta qurba joogta Nairobi ee SEJASS waxa looga hadlay taariikhdii dheereed oo ay soo martay saxaafadda Soomaaliya waxaana hal ku dhig u ahaa xuska munaasabada ee sanadkan mideynta codka iyo qalinka wariyaha taasi oo loo arkay inay muhiim u tahay warbaahinta Soomaaliya dabaaldegyada ay ka dhacayaan Kenya waxay ka mid tahay meelaha farakutiriska dabaaldegan lagu dhigay dibadda ah marka waxaan rajaynayaa in ay noo noqon doonto munaasabad sharaf leh waxaana lagu dhaliilaa in aqoonteena ay yar tahay laakiin dhammaanteen waxaan u badanahay dhalinyaro saas way tahay haddana waxaan ku dhiiranaynaa inaan booskeeni banaanaanin oo aan wali shaqadeena u taaganahay haddaan soo baxnay iyo haddaan gudihi joogno waxaan aad ugu xumahay qaarkeen naga mid ah oo lagu dhibaateynayo gudaha dalka Soomaaliya kuwa kale ayaa weli loo adeegaya xaaladda oo la dilaya la dhaawacaya marka iyaguna waxaan leenahay hambalyo 22 Janaayo geesiyaasha u halgamaya in dadku ay helaan maalin kasta wararka iyo wixii ka jira dalka gudoomiyaha ururka SEJASS Maxamed Cusmaan Niyog iyo Cali Muuse Cabdi oo ah rugcadaas saxaafadeed ayaa si wada jira waxa ay uga sheekeeyeen taariikhdii dheereed ee saxaafadda Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay in la xuso maalintan oo kale SEJASS waxay wariyaasha u samaysaa la talin waxaad ogtahay dalalka ay colaadaha ka jiraan wariyaasha jooga waxyaabaha u badan saameynta ku yeesha laga yaabo aan la ogeyn waa xanuunka la yiraahdo traumaha taana waxa iyadana aan ka kaashanahay dhinacaas u qaabishan dhinaca la talinta way samaysaa dhinacyo badan ayaa saxaafaddu ay ka saacidaysaa ama ka saaciday ururka tan labaad aan doonayna maanta ka hadlo waxay inaan cabasho weyn ka muujiyo dawladaha reer galbeedka iyo safaaradahooda ku sugan magaalada Nairobi iyo agagaarkeedaba kuwaasan aad uga cabanayna waxaan uga cabanaynaa maaragtay markuu wariye dhinto nin ajnabi ah oo maaragtay Paris ku dhinto ama meel kale waxa laga dhigaa arrin caalami iyo dambi weyn oo dhacay laakiin haddii uu wariye Soomaaliya ama mid madow dhintana lagama soo qaado maaragtay maroodi dhintay waa ka sharaf badan markii qaarkood uu ku jiro meelaha xariya lagu xanaanayo xoolaha agaasimaha qaybta Afrika u qaabilsan xarunta difaaca wariyaasha adduunka ee CBJ Tom Rhodes oo kamid ahaa xubnihii lagu casuumay madasha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay tacadiyada faraha badan ee loo geysto saxaafadda Soomaaliya waxaana uu ku dhiirigeliyay wariyaasha Soomaaliyeed inay hawshooda sii wataan safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur Americo oo gabagabadii munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa uu hambalyeeyay wariyaasha Soomaaliyeed waxaana uu kula dardaarmay inay si wanaagsan uga soo dhalaalaan waajibaadka shaqo ee laga sugayo aad iyo aad baan saaxiib u nahay suxufiyiinta wax gaar ah ma aha laakiin suxufiyiintu waxay ka mid yihiin dadka aan metelno ha ahaadaan qaxootiga ardayda ganacsada ku nool waddanka Kenya ay ka mid yihiin marka aad iyo aad baan idinka warqabnaa waxaan rabaa inaan si fiican aan aad idinkaga mahadceliyo idinkoo ku jira ama ku nool xaalad aad u adag si aad ugu shaqeysa halkan oo aad warka u sheegtaan oo warka u tabisaan oo aad ugu tabisaan Soomaalida meel kasta ay ku nool yihiin Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Nairobi